maanta waxaan halkan ku soo gudbinaynaa dardaaran kama dambays ah. waxaad la socotaan berri taariikhda maalinta ay tahay. berri waa maalin taariikhiyan ah. ciddii la raba ha la doorto, laakiin waxaa dhab ah berri inay tahay maalin ummadda Soomaaliyeed ay xusi doonto, taariikhdeedana qayb ka mid ah noqon doonto. marka ugu horeyso waxaan doonayaa in idin la wadaago xog muhiim ah. xogtaa waxaan la wadaagayaa walaalahayga maanta ummadda Soomaaliyeed isha gaarka ay ku hayso waa baarlamaanka, waa dardaaran, waa kama dambays. berri waxaad qaladaan, waxaad ogaataan taariikhda ummadda Soomaaliyeed inay gelayso, waxaad ogaataan nafsadiina wax laydin kula xisaabtama aad berri ama isku eedaan ama isku ammaantaan inay noqon doonto. xogta marka aan doonayo walaalayaal in idin la wadaago, berri dagaalka doorashada Soomaaliya waa dagaal cad oo u dhaxeeyo Soomaaliya iyo Itoobiya. cidii arrintaas tuhun iyo maxaa la yiraahdaa laalaab iyo madax adeeg ay kaga jirto waa noo cadaynaynaa. berri doorashada dhacaysa waxay u dhaxaysaa ummadda Soomaaliyeed masiirkeeda iyo inaan xubin ka mid ah noqono Itoobiya. waa labada un bay tagaysaa. xogta aynu helayno waxaa ka mid ah berri waxaa dhacaysa doorashadii sida aad la socotaan. Itoobiya bareeraheeda waa cadaysatay dagaal cad oo kafool oo qaawan ayay ku haysaa doorashada. maanta waxaa soo gaaray magaalada Muqdisho ama caawa waxaa soo gaaray hogaamiyaha maamulka Puntland waa seedigay ku fogaan mahayo wali dhaqankii iyo xeerka ummadda Soomaaliyeed lahayd baan oday baana ayaan rumaysnahay. Cabdiweli iyo wafdi uu hogaaminayo Itoobiyaan ayaa ka soo degay, waxayna doonayaan inay ka dhaadhiciyaan oo ku qasbaan baarlamaanka sharafta leh ee Soomaaliyeed ka soo joodo maamulka Puntland inay u ololeeyaan Xasan Sheikh oo u codeeyaan. Xasan Sheikh waa loo codeyn karaa, waa wiil Soomaaliyeed haddii uu Soomaali yahay. ceebo ma arka in loo codeeyo Xasan Sheikh. wax asagoo qalday haddana waa Soomaali baan dhihi karnaa, laakiin hadda waay Itoobiya ay xoog ugu haysaa u leedahay haddaan loo codeyn baarlamaanka waa dilaynaa, maamul goboleedyada qorta loo soo qabanaya. marka Mr. Gas iyo wafdi korneylo iyo generaalle Itoobiyaan ayaa ka soo degay si ay ula kulmaan uguna qasbaan inay u ololeeyaan una codeeyaan Xasan Sheikh. taas laakiin mas'uuliyaddeeda wuxuu saaran yahay baarlamaanka Soomaaliga ayuu saaran yahay. war kitaabka waxaad ugu dhaaratay dalkaada inaad ummadda Soomaaliyeed ka samata bixiso abaaraha, colaadaha iyo dhibaatada ragaadisay. haddii aad sidaa yeesho waxaad ogaataa taariikhda ummadda Soomaaliyeed Soomaaliya god kuma dhici doon. dad badan baa rumaysan mustaqbalka Soomaaliya inay berri god madow galayso haddii sidaa la yeeli waayo, laakiin waxaan rumaysnahay midnimada ummadda Soomaaliyeed oo dhab ah ayaa muuqato. baarlamaanka hore u muujiyeen, shacabka Soomaaliyeedna waa dareensan arrinta iyada ah. u dulqaadan mayno, mana dhici doonto. okay, ma keligii baa marka hadda ma aha dhammaan maamul goboleedyada ay Itoobiya soo wadaa. waxaa ku soo xigo maamulka Koonfur Galbeed iyo Shariif ayaa ku soo xigo. waxaa ku soo xigo ayagana caawa ilaa berri ma imaan doona, caawa ayagana imaan doona haddaynaba hadda joogin maamulka Jubbaland. dhammaan maamuladaas waxay u kambeyn garaynayaan oo Itoobiya qoorta u soo qabatay inay u ololeeyaan Xasan Sheikh. Itoobiya maxaa ka galay Xasan Sheikh? Xasan Sheikh soo madaxweynaheeni ma aha, ama ha noo xumaado ama ha noo samaado soo wiilkii shalayto ummadda Soomaaliyeed ay u codeysay oo soo maaha qofka markaa Xasan Sheikh. sababta maanta Itoobiya ay u wada leedahay haddaan loo codeynsaana yeelaynaa maxaa jiro? ma Itoobiyaan buu noqda. Xasan Sheikh waa nin islaam ah sidaan ku aqaano qof ahaan, waa wiil Soomaaliyeed, laakiin waxa weeye wuu u jaba. waxaan isticmaalahayaa erey baan isticmaalahayaa. cadowgaada mararka qaarkood xogtaada wuu hayaa. waxaan arkayaa Cali Dheere oo la wareysanayo afhayeenka Al-Shabaab, cadowga ummadda Soomaaliyeed la wareysanayo. hadal run ayuu ku hadla, been maahayn hadalka asaga. hadalku yiri muxuu ahaa? wuxuu yiri Soomaaliya election kama socdee selection baa ka socdo. Soomaha hadalkaas hadal run noqonayo oo propagandadoodii meel marinayo Sooma noqonayo walaalayaal. haddii